dadka reer Laascaano iyo dowladda Soomaaliland. Dowladda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa qoraga xalka kuma jira dadka qoraga inta laga daayo dadka dad la hadlaha loo soo diro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal meel kasta joogtaan baa walaalkii ka weera Maxamed Nuure waxaan rabaa maanta inaad tafaafulo muuqaalkan aad soo daawateen sida aad afkiisa ka maqlaysaan madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed maanta wuxuu aqoonsaday Somaliland oo marka sharciyan la fiiriyo waa madaxweyne ummad Soomaaliyeed inuu maamul kamida maamuladii uu talinayay oo yiraahdo dowlad heblaayo. dastuurka Soomaaliya horta waxaa noogu qoran dowladaha xibinta ka ah dowladda federaalka in madaxweynuhu iyo qofkii doonaya inuu markaa magacaabo maamul goboleedyada uu yiraahdo. laakiin madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed inuu inta soo fariisto oo yiraahdo dowladda Somaliland waxaynu ka codsanaynaa dadka reer Laascaano inay wada hadal la furaan oo asagu iyo madaxweyne u yahay. miyawsa Somaliland madaxweyne u ahayn? miyawsa Sool iyo Sanaag madaxweyne u ahayn? miyaysan ahayn markuu saa leeyahay inuu yiraahdo dadka shacabka ee halkaa isku dilaya iyo maamulka waa inay joojiyaan xabadda oo amar uu bixiyo madaxweyne. bal hadda u fiirso, waa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed wuxuu u dhaartay raas casayr ilaa raas gamboon jileeca xasan sheekh maxamuud ay kamid tahay. xasan anuu horey aan u sheegay nin horta dhib maahan markii si loo fiiriyo waa nin nabadoona, laakiin xasan waqti xaadirkaa la jooga Soomaaliya kuma habboonayn. ummad kala carartay kala fogaatay doonaysa in la isku keeno, kii aqli doonaya aqli la iskugu keeno, kii xoog doonayana dee la maquuniyo weeye ummadda Soomaaliyeed maantay xilligii nin jilicsan oo ninka la yiraahdo dee ma ahan xilligii loogu talagalay. sidaan ognahay xasan sheekh maxamuud dowladdan ka horreysay ee xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha keliya ee jigjiga ka degay. bal hadda u fiiri, madaxweynaha keliya ee jigjiga ka degaya Soomaaliyeed weeye. dhul la gumaysto oo dastuurka Soomaaliya ku qoran in dhulka xoog lagu haysto oo dad Soomaaliyeed aysan aqoonsan oo madaxweyne Soomaaliyeed aysan weli aqoonsan ninka jigjiga ka degay cod ka soo duubay waa ka soo dhantay. xilliga waxaa la dhahayay gabra dharbaaxay oo ku qasbay. maantay maxaa ku qasbay xasan sheekh maxamuud inuu Somaliland uu yiraahdo dowladda Somaliland siday tahay dowlad madax bannaan inuu yiraahdo dowladda Somaliland sharciba halkaa hoose fikradaada horta nugula wadaag. anigu qodobka waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu gaf weyn tahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed inuu dambi ka galay, dastuurka Soomaaliya inuu ku xadgudbay, inuu ummadda Soomaaliyeed qarannimadeedii u dhaawacaan anigu aaminsanahay ka kaba yarhaan. adigu waxay kula tahay qaybta hoose komandhiga adoon cadifadaysnayn noogu soo qor. waxaan rabaa kale inaan intaa ku daro ciidamadii elitariya laga keenay ee dowladdii asiga ka horreeyay soo tababartay ee maantay ummadda Soomaaliyeed ku xisaabtamaysay imaaraatis baa lagu wareejiyey. xogta haddaad haysiin waad haysiin, haddaadna hayna ma haysiin. dowladda imaaraadka ayaa qandaraas lala saxiixday, ayaga ayaa la wareegaya, ayaga ayaa mushaarkooda bixinaya, ayaga ayaa howlgelinaya. ciidamadaasi ka amar qaadanayaan sida ciidamada danab ay uga amar qaataan Maraykanka oo kale ayaa waxaa la doonayaa Masar ciidamadii Soomaaliya ee juhdiga ogay ku baxay ee dhibkooda laga soo maray ee intaasoo sare maqnaay ee tababarka caalamiga soo qaatay ee maanta la islaam waa dadkii lagu xoray lahay shabaab in wadan cadowga Soomaaliyeeda marka saas leeyahay dad baa iga xaraaqi doona. dad baa waxay dhihi doonaan imaaraatis waa walaalahana warogayda Soomaali waa iska carab jeceshahay. dad baa waxay dhihi doonaan waa dad muslimiin oo way noo gargaarayaan. bal doo fiirso, taana ku sheegay imaaraatis wax dan ay ka leeyihiin male. masiirka dalkooda ayay ka dhex arkaan, waxayna sameynayaan wax kasta oo dalkooda dan ugu jirto. maanta in Soomaaliya ay awood yeelato oo ciidan yeelato imaaraatis wax dan ugu ma jiraan. dowladdan ka horreeyay wixii wadanka ka bixiday
lacagta 10 milyan oo sharci darrada waddanka soo gelinayay ee qaraxyada geysanayay ee aynun ogeyn Imaaraadka hayeen ee dhulkii Soomaaliyeed kala dhacaya ee maanta berbero xoog ku dhisay oo boosaaso xoog ku haysta oo dadkii Soomaaliyeed kala dalaalaya maamuladii iyo dawladii federaalka u kala dhuumanayo weeyaan hadduu qarannimadaada jecel yahay dawladda federaalka oo ka amar qaadan lahaa maamul goboleed inta tago dekedaan ku dhisaan tayira heshiis lama saxiixdeen taa micnaheedu waxay tahay adiga Imaaraadis kumaba ogaba waxa taaba qarannimadaada ma oga dad inaad tahay ma oga oo ku yasaya macaadaan le Xasan Sheekh Maxamuud inuu maanta arrinka ku dhiirado oo Imaaraadis oo yira ciidamo Soomaaliyeed 5,000 gaaraya adinku mas'uulka noqda doqonnimada Xasan Sheekh Maxamuud aan ku dhaliilaya kamita waxyaalaha Xasan Sheekh Maxamuud aan ku diidanay kamita dad badan baa waxay taagan yihiin maxaad Xasan Sheekh Maxamuud ma caaradaysaa dad asxaabtayda ay gula kala dhintay qaar baa komediyaasha waxay igu soo qorayaan aflagaado walaalayaalow hal qodob aan idin leeyahay qofka fikradiisa xor buu yahay anigu Xasan waana taageeri karaa waana macaaradi karaa adiguna si leeg muhiim ma ahan anigu in adigu kugu fikrad noqdo muhiim ma ahan adow adiga uu walaalkaa yahay ama adeerkaa yahay ama aad qaab qabiil dana qabiilka dhex aragtid inaad aniga igu colaadisid muhiim ma ahan aniguna inaan kaa yeelo muhiim ma ahan oo adigu saa rabto kuu yeelo anigu saa rabaan u fakeraa adiguna saa rabtid u fakir ilaahay dadku isku fikrad kama dhigin waxaanse kuu sheegaan ku xaqiijinayaa Xasan Sheekh Maxamuud haddaad maanta qaab qabiil ninka noocaas samaynaya ku taageeraysid qaran dumis baa taade waxaan rabaa muuqaalkayga inaan ku gabagabeeyo war Soomaaliyay dawlad Soomaaliyeed oo maanta dadka Soomaaliyeed ku tashtaan meesha kama muuqato alla ilaahay waxa kaliya oo Xasan Sheekh Maxamuud ugu amaani karo waa dagaalka nimanka qawaarijta oo ku qaaday waxyaalaha aan uga sariiganayo oo aanan muuqaalada qaladaadkiisa u soo qaadanay kamid tahay aan isdhahaa ninku dagaalow ku jiraahe adna dagaal ku qaadin laakiin qarannimadana markuu dhaawaco oo dawladnimada meel uga dhaco inaan ka hadlaa xaq bay ugu tahay aad iyo aad baad mahadsantiin muuqaalkayga doo ku soo gaaray oo intaas in la ego Soomaalinimada kugu jirto gaarsii ummadda Soomaaliyeed si iyaguna uga dhiidhiyaan si ay mudaharaad u sameeyaan si qaladaadka dawladda qaladaadkeeda u saxdo muuqaalkan sheerta taabo waxaan kaloo kaa codsanayaa haddii aadan naga mid ahayn nagu soo biir barnaamijkeena la garayso sheer garaysinna waa noo muhiim adigana waa kuu fududahay aniga walaalka aana waa faa'iidadeyda